kulan wacan oo wanaagsan halkan waa Runmaal Media saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka qaybtan waxaan idin kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay caalamka Ukraine miyay ku soo biirtay dagaalkii lagu la jiray Iran kadib markii saacadii la soo dhaafay ay Ukraine diyaarad drone ah ku weerartay markab ganacsi oo ay Iran lahayd Iran maxay ka tiri dhinaca kalena Kuwait iyo waliba Bahrain ayaa la sheegayaa inay qayb ka ahaayeen weeraradii maalmihii ugu dambeeyay Mareykanka fulinayay gudaha Iran ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo hanjabaad culus soo jeediyay dhinaca Trump wuxuu leeyahay waxa dhow wada hadallo lagu soo afjarayo xiisadda dagaal ee kala dhaxaysa Iran qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan halkan waa Runmaal Media ku soo dhawaada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad nala joogteen aad baad u mahadsantahay muuqaalka like saar ayna ku bilownay Ukraine ayaa saacadihii dambe ee shalay diyaarad aan duuliye lahayn ku weerartay markab ganacsi oo ay leedahay Iran oo marayay biyaha xiran ee Caspian wuxuuna weerarkan dhaliyay dhimashada hal badmaaxe halka mid kalena uu ku dhaawacmay iyadoo weerarkan uu ka cadhisay Iran weerarkan kadib Iran ayaa si adag u cambaaraysay waxaana lagu sheegay war saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Iran inaysan Iran gacmaha ka laaban doonin oo ay ka jawaabi doonto weerarkaas sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda Iran u yeertay madaxda ergada siyaasadeed ee Ukraine u fadhiya Tehran ilaa ay hadda Ukraine kama aysan hadlin sababta dhabta ah ay u geysatay weerarkaas haddaba Iran muxuu muhiim ugu yahay badan xiran ee la yiraahdo Caspian badda Caspian waa biyaha ugu weyn adduunka ee xiran oo aan bad kale ku xirnayn inkastoo loogu yeero bad haddana waxa loo aqoonsan yahay hara aad u weyn oo cusbo leh waxay ku taalaa inta u dhaxaysa Yurub iyo Aasiya waxaana ku hareeraysan 5 dal oo kala ah Ruushka oo kaga yaala dhinaca waqooyi galbeed Kazakhstan oo waqooyi bari ka xigta Turkmenistan oo dhinaca koonfur bari kaga beegan iyo Iran oo koonfurta kaga beegan iyo dalka Azerbaijan oo galbeedka ka dhaca badda Caspian waxa ay leedahay muhiimad istiraatiiji oo aad u weyn sababtoo ah waa marin muhiim u ah ganacsiga u dhaxeeya Ruushka bartamaha Aasiya iyo Iran waxay noqotay marin ay Iran ku hesho ganacsi iyo saadka dhinaca waqooyi halka oo ah marin sida tooska ah Iran uga xiro Ruushka waxaa loo arkaa sirta ka dambaysa adkeysiga Iran ee cunaqabataynta saaran muddo 45 sano ah maadaama aysan saameyn ku lahayn Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka xilligan in carqaladda ay kala kulantay Iran waxaa loo arkaa jiha kale oo dagaal lagu furayo iyadoo weerarka hadda dhacay uu muujinayo inay Ukraine isku dayayso saameyn inay ku yeelato cadaadis kala saaraya Iran si ay taageero uga hesho Mareykanka oo ku dhibaatoonaya dagaalka Iran uu kula jiro waxayna Ukraine u diraysaa Mareykanka fariin ay ugu sheegayso haddii aad ku dhibaatooto marinada ay xirtay Iran waxaan ku haynaa xal lagu daciifin karo Iran oo kaliya Ukraine ay sameyn karto Iran waxay marinada badda cas u adeegsataa Xuutiyiinta isla sidoo kale ay Ukraine isugu soo bandhigaysaa inay u sameyn karto Mareykanka oo ay heli karto goob ay Iran ku cadaadiso iskoorimaad kasta oo dhexmara Iran iyo Ukraine sidoo kale wuxuu quseeyaa Ruushka maadaama Iran ay Ruushka ka taageerto dagaalka uu kula jiro Ukraine taasi oo dhalisay marar badan inay Ukraine ku eedeyso Iran in ay si toos ah ugu lug leedahay dagaalka oo agabkeeda military lagu soo weerarayo dhulka Ukraine haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah Iran ma awoodaa in ay gantaaladeeda ama diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ku weerarto ama weerar kaga geysato gudaha dalka Ukraine iyadoo oo laga ganayo gudaha Iran haddii biyaha Caspian lagu sheegi karo wadnaha ganacsiga iyo sahayda Iran waxa la isweydiin karo ayaa ah inay tallaabo argoosi ah Iran qaadi doonto iyo in kale mas'uuliyiinta Iran ayaa sida ay maanta baahisay Al Jazeera waxay sheegeen inay taasi farsamo ahaan ay suuragal tahay maadaama masaafada u dhaxaysa caasimadda Iran ee Tehran iyo caasimadda Ukraine ee Kiev ay ka yartahay 2,000 kiiloomitir taasi oo ay sheegeen inay tahay masaafo ay gaari karaan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran dhinaca kalena sida saacadii la soo dhaafay ay baahiyeen warbaahinta reer galbeedka sida New York Times iyo warbaahinno kale Kuwait iyo waliba Bahrain waxaa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ee ay socdeen duqeymaha lagu hayo dhulka Iran ay qayb ka ahaayeen diyaaradaha dagaalka labadaasi dal dawladda Kuwait ayaa maanta si cad u beenisay warbixin uu maalin ka hor daabacay wargeyska Mareykanka ee Wall Street Journal taasi oo lagu sheegay in Kuwait iyo Bahrain ay qayb ka qaateen weerar military oo laga fuliyay gudaha Iran war-saxaafadeed uu soo saaray safiirka Kuwait u fadhiya Mareykanka Sheikh Al-Zayyin ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay tahay mid aan sax ahayn oo aan ka turjumayn xaqiiqda safiirku wuxuu cadeeyay in Kuwait aysan qayb ka noqon howlgallada military oo ka dhan ah Iran isla markaana aysan marnaba ogolaan doonin in dhulkeeda hawadeeda ama biyaha ay maamusho loo adeegsado weerar lagu qaado dal deris la ah
wuxuu intaasi ku daray in mowqifka Kuwait uu yahay mid ku saleysan ixtiraam madax banaanida dalalka, ilaalinta xasiloonida gobolka iyo ka fogaanshaha colaadaha sii hurin kara xaaladda Bariga Dhexe. dowladda Kuwait ayaa sidoo kale ugu baaqday wargeyska Wall Street Journal inuu si rasmi ah u saxo warbixintii uu daabacay maadaama ay tilmaantay mid aan sal iyo raad toona lahayn. arrinta ayaa kusoo beegmaysa xilli ay sare u kaceen xiisadaha gobolka iyadoo dowladaha khaliijka intooda badan ay dadaal ugu jiraan inay ka fogaadaan inay si toos ah ugu lug yeeshaan iskoorimaadada militari ee u dhexeeya Iiraan iyo dalalka reer galbeedka iyo xulafadooda Israa'iil. dhinaca kalena sida ay baahisay warbaahinta sida weyn ugu agdhow aqalka cad ee la yiraahdo Axios, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bedelay luqadiisii adag ee ku wajahneyd Iiraan isagoo sheegay inay dhowdahay wada hadallo ee lagu soo afjaro xiisadda dagaal ee u dhaxaysa labada dhinac. Axios ayaa sidoo kale baahisay in arrintan ay imaanayso saacado ka hor markii mas'uuliyiin ka socota dalka Cumaan ay gaareen magaalada Tehran iyaga oo la wadaagay mas'uuliyiinta ugu sareysa Tehran wada hadallo lagu soo afjarayo xiisadda dibna loogu furayo marinbiyoodka Hormuz. dhinaca kale afayeen u hadlay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ay cadaadis ku saareen Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka in wada hadal lagu soo afjaro xiisadda. afayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan General Hussein Mohabi ayaa wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee Tasniim ku sheegay in Iiraan intii u dhaxaysay 8 ilaa 22 Luulyo fulisay howlgallo military oo uu ku tilmaamay kuwa khasaare u gaarsiiyay ciidamada Mareykanka. General Mohabi wuxuu sheegay in weeraradaasi ay ugu dambeyn ku qasbeen Mareykanka inuu dib ugu soo laabto wada hadallada iyo diblomaasiyadda. sida uu sheegay bartilmaameedyada la weeraray waxaa ka mid ah nidaamyada difaaca cirka ee Patriot, raadeerada xarumaha taliska iyo xakameynta nidaamyada isgaarsiinta, dayax gacmeedyada, xarumaha saadka, kaydadka shidaalka iyo goobaha lagu kaydiyo gantaalada. afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in gantaale iyo diyaarado aan duuliye lahayn lagu burburiyay goobo lagu xareeyo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn. wuxuu xusay in bartilmaameedyada ay ku jireen diyaaradaha dagaalka F-35, diyaaradaha ilaalada badda ee loo yaqaan B-8, diyaaradaha xamuulka ee C-17, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee MQ-9, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo diyaaradaha shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka. si kastaba ahaatee dowladda Mareykanka weli si rasmi ah uguma aysan hadlin sheegashooyinka uu baahiyay afayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan, mana jiro xaqiiq madax bannaan oo cadaynaysa baaxadda khasaaraha ay Iiraan sheegtay. hadalka IRCG ayaa imanaya xilli xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Washington ay weli taagan tahay isla markaana labada dhinac ay isweydaarsanayaan eedeymo iyo sheegashooyin ku saabsan natiijooyinka howlgalladii military ee dhacay toddobaadyadii la soo dhaafay. guud ahaan saaxiibayaal qaybtan intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaadii aad baad u mahadsantahay.